أصحابي سود هذا مالي مقلع دائما قشين وعدك إذا كفي عنه مقشين فرت سود هذا صو عرورة هذا سفي علي مقليسين هلا إيه سو جوابه ما سنتهين سو هذا هرت أنت اللي سكوي معانا عيو حوغاير هيس أنا ضار عيا والجمع سنة عيا مركا سكوي ماتين توبي قان ربين عن كهالله يو واحد ما أنت لايف كأني وان إيمانين نمع عطك سفي عمو ما يريها باي سفي عمي مقشد نعيم علي نمع دلقات dhamaantiin waa salaamantiin kulligiin hiiraad muuna waa la soo wada bad kulligiin waa mahadsantihiin codka si fiican ma ii maqlosiin okay that's fine hadaa si fiican ii maqlaysiin beel la waayo marka waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena inta hor dadka ka imaanayaan waxaan rabaa heesa barnaamijka ku furfuranayo inaan idiin daaro kadib markaa barnaamijkaas heesta markay noo dhamaato hore baan ka daaranaynaa waxaa meesha u imaanay سو عرور حقيق وحكوه فيلن حقي دمركو حقيقا حقي دمركو حنيوان حكمايا مالك حبناها لقى جبينا يا هبلها ولا حوغيا حركة قوانا إيو إلا حكمايا مالك حريري أدوكو حالسي حطونا لغانوغين حدي الحسوسي أنا حناقة نبو حريري أدوكو حالسي waa mahadsantihiin dhammaantiin intaas ha nooga ekaato heesta waxaa raba barnaamijkan ku kala furfurto hees micno weyn xambaarsan oo soo koobayso barnaamijka maanta isoo fariisiyay halkan horta waa markii ugu horreysay horta live imaaday go-aankayga ma ahayn inaan live imaado laakiin sababo jiro iyo duruufo nololeed ayaa igu soo qasbay marka waa ku qasbanahay in halkaan imaado waa loo baahan yahay marka qaar wax aadan ku dareemeynin يعني هذا دريمي الناس سميسو إن أسكت ضيضو إن سميسو كو قصبان تاعي مرك واي كنا هرت مان تواعي ماضي قري وانا قصو كعسان مر هدا صوب بحني أو بنانك إيماني مركا وعلى ربعين الإسدياريو وحالوس على سفر كاسو حواي لبا لوك لقيبسين يعني مرة هاي كل برك يدومر على لوك لقيبسين هاي لكن حالي هاي إن سفر كان وحلوك لقيبسين أنا دد وناق جعل يدد حمان تجعل على لوك لقيبسين أنا يا waxaan iskugu jiri karnaa rag iyo dumar laakiin message-kayga guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay maanta dumarka waxaan la hadlayaa gabar kasta aan la hadlayaa waxaan la hadlayaa wiil kasta oo wanaagsan waxaan la hadlayaa cid kasta oo rabta inay wax yani dhageysato ama dhibaatada jirto ee dalkeena ama dadkeena ku habsatay rabta in xal loo helo haddii aanan conversation sax ah ama honest conversation waxay dhahaan dadka afka qalaad ku hadlo hadaanan nafteena anaga wax si saxan aan ula hadlin
lagama yaabo in horta dhibaatada jirta laga gaaro xal. maxaa kala jeedaa taas? maxaa kala jeedaa maalmahan baraha bulshada waxaa kusoo badatay rag magac diin isticmaalayo ama dhaqan meeshay rabta ha ahaato, misna dumarkii laga celin laayahay. mid jirkeeda ka hadlo, mid maskaxdeeda ka hadlo, mid caqligeeda ka hadlo, mid aqoonteeda ka hadlo, mid damiirkeeda ka hadlo. yacni ma aqaano raggii ma waxay iloobeen ayaga naftirkoodaba inay hooyo dhashay, walaal leeyihiin, gabar ay u dhaxaan. marka dhibaatada aniga sida aaminsanaa meelay salka ku haysaa, meeshaas in la taabto qasab waa. marka haddaan la taabanin waa la iska dawarwareegaya, taa iska dawarwareegin wax dhibaato ma la helayo. horta intaana hadalka inku badin, dhammaantiin waa salaamantihiin asxaabteyda, si qaasa idin salaamaya. kulligiin waa idin arkaa inaad joogtaan, magacyadiin ma wada xusi karo, laakiin kulligiin qalbigaaga ku haya. waa mahadsantihiin maanta inaad waqti soo qaadataan, oo aniga inaa daawataan waqti usoo qaadataan. horta waa idinkaga mahad celinaa 100% waxaan usoo gudubno. waxaan usoo gudbayaa barnaamijkan maanta usoo gala meesha oo ah xadiis maalmahan qof naftiisa xataa la rabo in lagu gooyo. xadiiskaas maxaa waaye? xadiis caana waaye, saxiix waaye, waa laiskuma haysta saxiixnimadiisa. waa marka qofku muslim yahay. waxaan ka hadlaya qofka muslim markuu sahayn uusa aaminsanayn xadiisyada dee waaba iskugu mid moogtahay, wax saxiixa iyo waxaa saxiixayn muhiimad ma lalaha. laakiin waxaa la hadlayaa adiga saxiixa inuu yahay aaminsanay u socdo dadka inaad rabto inaad disho. waxaa kula hadlayaa adiga, waxaa ka bilaabayaa xasan daahir awees oo aan wada naqaano oo rabo dadka inuu ku dilo xadiis. horta inta aanan xasan u gudbin waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan cabdishakuur. aan u mahad celinayaa, waxaan ugu mahad celinayaa 100%. waxaan ugu mahad celinayaa haddii ay jirto mahad celin qof bili-aadana loo diro, waxaan dirayaa midda ugu sareyso, wax kalena maaha. waxaan ugu mahad celinayo inuu naftiisa anaga noo riski gareeyo, ama inuu gabdhaha soomaaliyeed dhib kala qaybsado, inuu horta naftiisa riski u geliyo, wuu ku mahadsan yahay. waxaan leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuurow, ama siyaasad ha ka ahaato, ama daacad ha ka ahaato, ama whatever ha ka ahaatee, anigu ka naciima ahaan waxaan ku leeyahay waa sharfan tahay, waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay, waxaan ku leeyahay wax aysan siyaasiyiinta soomaaliyeed ku dhiiranaa ku dhiiratay. adeerow ka aniga ahaan, ka dumar ahaan, ka gabar ahaan waxaan ku leeyahay horta aad iyo aad u mahadsan tahay. horta anigu naaqis maahi, it doesn't matter meeshay ka timid, it doesn't matter cid dhahay, it doesn't matter meesha laga soo wariyay. ka naciima ahaan naaqis maahi. wax iga dhaadhici kara inaan naaqus ahna maba jiraan adduunyada. okay, maxaa maxaa laay cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa lagu haystaa? cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu arkay xadiis, wuxuuna u barbar dhigay waaqica dunida ka jirto. wax kasta oo lagu sheego waxaa la barbar dhigaysaa waxa dunida yaalo. hadday isqaataan waa aqbalaysaa, it doesn't matter meesha ka imaadaan. hadday isqaadan waayaan waa diidaysaa, it doesn't matter meesha ka imaadaan still. okay, halkee u socdaa waay? maxaa u socdaa? tusaale ahaan marka aniga aad rabtid inaad ii sheegtid aniga naaqus ahay, anaa dumar soo maaha? so aniga inaad dumarnimo aniga aan iska dareemo waa horta kow inaan ahay naaqus. kow. number 2 waxaa waaye hooyadaa inay iska dareento waaye inay naaqus tahay. number 3 waxaa waaye xaaskaada inay iska dareento waaye inay naaqus tahay. marka factska yaallo oo dhan ay isku soo dardarsamaan, okay, wixii markii facts loo haayo cidnaba diidi karto. wax kasta oo caddeyn leh waa la aqbalayaa meesha doonana ka imaadaan. marka aniga haddaan dhaho waxaan macnaha wacyiga adduunka ka jira lama jaan qaadaya, waa idilay miya? ha, waa idilay. sabab waxaa lagu dhahay nebiyaa laga keenay. su-aasha waxaa waaya adiga nebiga maa la joogto waayo su-aasha koowaad. may adi maa kasoo warisa waayo? may. okay, say ku ogaatay 100% inay tahay mar haddaa inta adduunka ka jiro waxa ka jiro aad u barbar dhigtay wixinay isqaadan waayaan, say ku keentay? tusaale caqli, hal caqliyaa jiraya adduunka, hal caqliyaa jiro, 2 caqli ma jirto. tusaale ahaan caqliga waa midka qofka lagu maamulo, ku soomo, ku salaado, ilaahay ku caabudo, dadka ku hogaamiyo, wixii xuni wixiisana ku kala garto. okay, wan caqli waaye. ilaa markaa hortiisa taagan tahay, markaa jikada ku jirtid,
markaa wax baranaysid hal caqli aa leedahay. okay soo soco. halkaada caqli marka hogaanka maraayan inuu zero tago oo gabadha markay wax hogaaminayso zero ay noqoto, marka ilaahay hor istaagsan tahana 100% ay noqoto, macquul gal maaha. okay it doesn't add up. macnaheedu maxaa ka wadaa 1 + 1 = 2 inay noqoto waayno. hadday noqon weyso we reject it. unfortunately we reject it straight away. waa diidaynaa. okay gabdhaha waxaa lagu waajibiyey soon, waxaa lagu waajibiyey salaad. it doesn't matter xaaladay ku jirto, wax kasta oo ina rag uu ilaahay ka rabaa ayada laga rabaa. su-aashkood waxaa waa ilaahay qof naaqus ah inay caabudo muxuu ku falaa? waaba hadday naaqus jirto. macnaheedu waxaa waaye wax naaqus ah ma jiraan in this sense. mar hadday gabadha ayada uur leh ee macnaha ilaahay u soomayso oona laga cafinin oo leeyahay gabadha uur ay leedahay laga dhaafo. please and please haddaa idhihi lahayd maya gabadha markay uurka leedahay way iska dhaafi kartaa, ninku hadduu xanuunsado wuu iska dhaafi karaa, right? hadduu safar yahay soonka uusa awoodin wuu iska dhaafi karaa. okay sidoo kale gabdhaha hadday xanuunsan tahay ma nafteeda ay u baqdo, xataa nafteeda maaha sometimes caruurteeda markay u baqdo way iska dhaafi kartaa. still macnaha ma laga cafiyo? may way soo gudaysaa, waa laga rabaa, ma loo cafinin. okay wax loo cafiye ma jiraan, waa deen lagu leeyahay waay. okay marka deen lagugu leeyahay oo adiga markaa naftaada u baqdo aad diiday iyo ilaahay wuxuu kuusoo gartay isku mid maaha. hadduu ilaahay ku dhihi lahaa gabadhan uuray leedahay masaakiin waaye, waa naaqisatul caqli wa diinta aa sheegayseen waaye, ma awoodo uuray leedahay, waxbay la daalaa dhacaysaa dhibaato ee ka dhaaf. hadduu ilaahay dhihi lahaa warbay haleed. laakiin waa wax adiga intaa xisaabtanto maskaxdaada iyo caqligaada aad la xisaabtanta as leedahay alla ilaahay dhibaato iyo khatar naftaada iyo ciyaalkaadaba ku jiraane ka daawaayo. may la socotaa hadda? okay soo gudub marka. say usoo gudbaynaa horta waxaa la rabaa qofku inuu ku baraarugo wax walba waqtigay leeyihiin iyo time iyo waxay leeyihiin mar loogu talagalay. waxaa mar kasta fiican waqtiga lagugu talagalay inaan soo dhaafin. okay inaadan gabdhaha marka ay jaahilka yihiin iyo markay aqoon leeyihiin iyo markay fursad haystaan isku nuucaadan ula hadlin. wax ku xisaabtantaa waxaa la joogaa duni horu martaa la joogaa. duni waxaa la joogaa gabdhuhu caqli leeyihiin, wax bartaan, maskax leeyihiin. waxaa laga yaabaa xishood family ay u qabaan, waxaa laga yaabaa ayagoo dadka iyo bulshada dhibaatada u geysanaa ka cabsanayaan, waxaa laga yaabaa ayaga oo wax kale xeerinayo inay waxyaabo badan oo naftooda dhibaato ku ah ay la aamusaan. maxaa la rabaa marka ka bulsho ahaan? waxaa la rabaa inaa xishootaan. marka la idinka sariiganayo oo la idinka aamusayo oo la idinka cararayo macnaheeda maaha inaa caqli oo isku difaacaana lahayn. tusaale hadda aniga kuma fikiraynin inaa imaado life, laakiin yaa iga keenay waxa ii keenay wadaad luuqad carabeed soo bartay ee kelmado carabiga sida loo fasiro bartay ee adduunka wuxuu kasoo kordhiyay aanan jirin, ee mashaqaysta ahee masjid hoos fadhiyo, ee lacaga laga soo aruuriyay dowlado gaalo iyo kuwo kaniisyo iskugu jiro iyo kuwo gabdhaha shirmutooyinka kalaabiyadooda laga soo aruuriyo. wax kasta ay necab yihiin whatever ee ayaga ay ku tilmaamaan xaaraam, lacag laga keenay taxpayers, dad soo kacay subaxii lacagtooda lasoo qaaday meel la geliyey masjidadoo lagu baara lagu macnaha waxaa lagu sameeyaa fundraising, waa la siiyaa. wuu soo kacaa salaaduu dadka tujiyaa, jeebkiisuu lacagta ka baxsadaa, gurigiisuu aadaa. wuxuu meesha u fadhiyaa u qaabilsan yahay inuu dadka gaaraysiiyo, inuu dadka caayo caqligooda, inuu xeer qabta ma leh. tusaale xasan daahir awees waa 70 jir. waxaa waaye 70 jir. waxaan u maleynayaa cimrigiisa marka la qeybiyo 70 haddii loo dhigo 90% wuu dagaalamayay. waa la xiray, haddadaan xabsi guri asoo oo dad gaalaysiinaa. right now as we speaking ilmihiisa iyo naagtiisa loo biilaa. lacag dad shaqaysteen subaxii soo kaceen oo dad ku fakereen nolol ku haysteen inta lasoo siiyo la yiri naagana ilmo ka dhal, halkaana fariiso, telefoonaa faraqa loogu shubay. wiil siyaasiya wax bartay jaamiciya cabdiraxmaan cabdishakuur la yiraahdo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo aqoontiisa isticmaalayo fafakanaa.
okay ani marka cabdiraxmaan cabdishakuur dartay loo dilaa ana gurigaa fadhinaa miya may ma fadhinaayo cabdiraxmaan cabdishakuur markuu dartay u dhimanaayo anaa ka hormaraayo waay maxay tahay aniga nolosha aan u baahanahay haddaa fikirno maxay tahay nolosha aan u baahanahay haddii aniga existencigayga lagu murmaayo cabdiraxmaana idifaacayo xasan daahira wuxuu ugu tilmaamaa naaqistul caql waxaa isku kay dagaalaya rag doorkii dumarka aaway gabar halkay jirtaa markii oo laba wiil ay isku murmaayaan inaa naaqis tahay inaa caqli leedahay waraayo wuu ku caawin karaa cabdiraxmaan cabdishakuur daalinka wuu kuu dagaalami karaa siyaad bar wuu kuu dagaalami karay wuuna kuu dagaalamay soo dhagaysa khudbadihiisa wax kale looma dilin nacib adig lagu qabaa loo dilay reality ma ahan qabiil oo ahaay iyo waxbuu badsan jiray iyo intay ka dhacday iyo dadka magaciisa u ahaay iyo huduu iyo ma ahayn maalinkuu yiri dumarka gabdhaha la siman ragga maalinkaasaa weerar lagu bilaabay maalinkaasaa kursiga in laga bursado lagu bilaabay maalinkaas uu gabalkiisu dhacay maalinkaasay ummadii u shirtay qabiil kastay ahaayeenna maalinkaasi intay tashteen ay weerar kusoo qaadeen cabdiraxmaan cabdishakuur indhahaagoo 5 aasaas loo siibaa wax kale maaha markay timaado qadiyada dumarka raggu in fiican maahane inta kale way ka samaysan yihiin in dhulka la jaro nin raba ma ku yar yahay naagtiisa in intay soo baxdo ay wax ma ay noqoto wuxuu rabaa inay cuntada u kariso guriga u hagaajiso wax u samayso okay ani marka wiilasheena halyaayada in dartay loo dilo ma ogolaanayo wiilka halyaayiga waxaa rabaa inuu ii joogo inuu ii noolaadaa rabaa sida aniga aan u noolahay waay waas garabsanaynaa wax fiicanna waa qabanaynaa waxaa u baahannaha marka dumar ahaan waxaa u baahannahay cawada waxaa wadaa 3 xadiisaan wadaa hal ma oho cabdiraxmaan cabdishakuur waxa lagu haysto 3 wadaa 3 duba challenge aan siinayaa wadaadadaan siinayaa qofka cilmi lahaan siinaa qofka caqli lahaan siinaa logically qofka iga dhaadhicin karaa rabaa inuu halkaas soo istaago uu aniga inaqdiyo waay anigu gabaraa ahay sa aaminsan tahay caqligaygu waa daciif ka aaminsan tahay daciif waxaa rabaa inaa xabad kugu kala dhirigo horta naaqasatul caqli wadiin waxa la dhaho male caqli qofka ilaahay uu ku caabudo mar hadduu yeesho ilaahay uu ka rabo inuu caabudo taas meeshayba ka baxdayba daaqada duudub ay uga booday wax kasta oo waajiba oo diiniya ragga la saaray dumarka waa la saaray simple as daaqaday ka booday gabar dhiig lahaa wax laga cafiyay iyo gabadha dhiig gala marka wax laga cafiyay wasaqdeeda la diidaayay dahaara kelmada dahaarada ee isticmaashay diintu maxay ahayd marka isdaahir la dhahay macnaha waa wasaqaysan tahay daahir soo noqo salaad u soo noqo la yiri right lama dhihin gabadha way xanuunsan tahay waa masaakiin dhiiga ku dhac laga dhaafo mala dhihin ya marka maadaama aan gabadha dhiiga laga dhaafo marka iimaanaysan naxariis loo dhihin naxariis darteedna aysan barnaamijka wax looga dhaafay aysan ahayn taasaa waxay cadeynayso naaqus gabadhu aysan ahayn bointiga labaad maxaa waaye gabadha marka ilmaha dhasha kadib la dhahay aysan 40 beri ha iska joogtay salaadin sidoo kale waa dhiiga aan daahirka ahayn waxa loo diiday maahan naxariis gabadhaas dhibka qodobada la geliyay iyo barnaamijka ka timid maahan bartaas waxa uu gudbaynaa horta naaqasatul caqli wadiin waxa loo baahan yahay naaqasatul caqli wadiin inay naga harto barnaamijkan marka leadershipka loo baahan yahay gabdhaha ay rabaan inay wax hogaamiyaan soo baxsanayo anaga waa diidna leadershipku malahan wax la yiraahdo gender malahan ato xilada waxay u leedahay aqoon xilada karti waxaa looga baahan yahay shuruudo qofka inuu soo macnaha uu soo buuxiyo la rabo intaas qofka hadii laga helo idada matter inuu yahay inuu naaga uu hogaamiyo noqon karaa marka waa mahadsantiin taas horta xadiiskaas meel aan dhigeynaa xadiiska dumar badan ay ku baraarugsaneen oo meeshana laga soo weerarayba ahbo waa ogaleynaa keeway xadiiska dhaha waaye gabdhaha feer qalloocana laga macnaha laga sameeyay kan dhahayo waayo okay jirka gabadha markii la fiiriyo feer qalooc ma ku taal physically oo proof ma laga helaa marka jirka gabadha la fiiriyo ninka feerato toosan oo leeyahay gabadha feer qaloocan ay leedahay miya not at all xibnaha markii la fiiriyo waa la siman yahay caadi waaye
wax dhibaato ah ama farqi ah ama mushkilad ah oo dadka haysato ma leh oo macnaha gabadha wiilka uga duwan yahay physically ma jirto oo cadeynayso in feer gabdhaha ku taalo oo qaloocan ay jirto scientifically ma la cadeyn karaa lama cadeyn karo oo scientifically meel lagu sheegay gabar feerteeda qaloocan tahay oo jirka bini'aadanka bodiga waxaa bartay dadaa bartay ku takhasusay oo jaamacado uga soo baxay weligood ma soo report gareen gabar feerka qaloocan tahay intaa ka keenta adi oo xadiisaa ka maqlay xadiisaa ka maqlay isna good enough waa maqli kartaa laakiin is it true hadaa maqashay waayaan loo heli karin meesha qaloocan waayo feer ninka ka baxsan oo meesha oo feerta laga bixiyey loo arki karin how come why aan u haysan karin proof iyo evidence lagu laabto si ay u heli karin where is it I wanna see ma arki karaa no macalaasaf say ku qaataa marka macalaasaf say isku caayaani aan u dhahaa feer qaloocanaa laiga awmay waxaa la qalqaloocanaha waa feer qaloocan weer nimankii aana loo jeedin meeshii wiilkii feertii laga bixiyey la arki karin maadiyan aan la cadey karin aniga aana jirkayga laga heli karin dhaqamadeeda aan laga heli karin there's nothing to prove laakiin believe me gabdhow waa xadiiskaas meeshana laga soo weeraray waa xadiiska ugu dhibaatada badan ee dumarka dhabarjabka ku ah waa xadiiska sheegayo inaa adigu tahay wax qalqaloocan ee toosnayn baad ool waa midka kuu diidaya leadershipka waa midda kuu diidaya talada waa midka kuu diidaya caqligaada inaad isticmaasho waa ka daran yahay naaqistul caqli wadiin waayo markaad caqbasho kow foundation ay leedahay mugt markaad caqbasho inaad tahay qof qalqaloocan kadib waxaa aqbalay inaad waxba awoodin kadib waxaa aqbalay haddana inaad xanuunsan tahay haddana aqbalay kadib shaqada guriga iyo wax kastaa qabanee ninkani waa ka liidataa positionkaagu waa ka liidataa le waay weligaa ma soo dhaafaysid okay taasna sal iyo raad ma lahan haddaa cabdiraxmaan cabdishakuur ku burbursanayseen xadiis soo diiday anaa si cad u diidaayo waa diiday mana yeelaayo mana maqlaayo mana dhegaysanayo wax koonka saaran hadday isku wada imaadaanna magaraa dhicin karaan reason being because evidence based maba ahanbo logical based ma ahan anybody oo rational thinking maskaxdiisa isticmaalayo si caqliyaysan u isticmaalayo oo iska blockageka ku xiray ka bixinaayana ma aqbali karo good example aniga ah wax kasta oo dumarka laga sheego waa inay gabdhuhu iska helaan abaay isfiiri adiga waxa inta aadan aqbalin adiga iska fiiri ma iska heli kartaa calaamadaas haddaa iska heli kartid dabcan waxaa laguu sheegaya run waaye macnaha lagama yaabo inaad iska heli kartid maahano hadda adduunka dhan iskugu kaa imaadaanna ha ka yeelin waxba ha dhegaysanin no waxaa dhegaysataa wixii lagu cadeyn karo simbalas anigu cadeemaha kama soo horjeedo aniga nimanka iyo naagaha inay kala duwan yihin waa aaminsanahay ana hadduu nin maahi ninku naciimo maaha naciimo nin maaha nimanku waa ka duwanahay muuqaal ahaan waa ku kala duwanahay okay kala duwanaansho way jirtaa qof diidi karo anaan diidi karin qof kale aan diidi karin laakiin kala duwanaansho kala hooseyn maaha kala duwanaansho kala sarreyn maaha let's not get twisted ma ahan inaad waxaan isku xirxirna maaha mugt yes ragga waa ka duwanahay laakiin waxaan uga duwanahay anigu gabaraan ahay asaguna waa wiil functioninka bodygeena way kala duwan yihiin laakiin mas-uuliyaadka xaquuqda caqliga maskaxda waxbarashada fursadaha waa ka simannahay waxa way dheeraan kara ma jirto whatsoever okay waxaan ballan qaaday 3 xadiis cabad inaan wato moogtahay xadiiskayga saddexaadaan duldul ugu galaa anoona marka in ku badin xadiiskayga saddexaad waxaa waaye oo cawada raba inaan hawada ku cuno labay ahaayeen moogta waa ii tiriseen xadiiska saddexaadaan raba hawada inaan ku cuno oo cawada ii tirinaysiin waxaa waaye xadiiska dhahaayo waa ka xishoona kollaytabo xataa ma dhihi karo xadiiska dhahaayo waaye nabiga waxaa laga wariyay inay gabdhaha naarta u badan yihiin cajiib naarta u badannahay come again
naarta waxaa u badan dumarka titleka naarta magaca dumarka ku qoran percentageka la xisaabiyey dumarka gabdhaha macnaha dumarka percentageka markii la xisaabiyo naarta ku badan. How is that possible? Please ii sharax. adduunkaanaan ku noolnahay waxaa rabaa inaa ifahansiisa see ku dhacda taas. waxaa kaaga soo bilaabayaa taariikhda marka bili-aadan la keenaa kaaga soo bilaabayaa rag iyo dumar isku dembi adduunka maba ka gelinbo. yuu aqri taariikhdaa rabta aqri boqortooyooyinkii aqri colonizationka aqri waxaad aqrisaa any historic facts ee bili-aadanku sameeyeen aqri. waxaa ila wadaagtaa goortay dumar rag ka dembi badnaadeen maba jirinbo. why? because physically ba xataa maba awooda physically maadaama awoodu ay muruq ahayd markaas maba aysan awoodinba dumarku inay dembiyada ay geystaan raggu ay geystaan. raggu waxbay kufsaayeen, waxbay dhacaayeen, waxbay dilaayeen. Hitler xataa haddaa taariikhda dadka ugu waaweyn adduunka haddaa soo qaada buug ayaa tiraa dadka ugu dambiga badan adduunka maxaa kusoo baxaa top 10, top 20, top 40, top 60, top 70 niman waaye. all of them niman waaye. dembiyo la yaab leh galeen. nobody rag mala simnaa karto danka dembiyada ka mageen. marka waxaa ii sheegaya aniga ina aniga magaciigana arta ku qoran yahay miya magaca nimankana uu ku qoran yahay jannada loogu talagalay. sabab gabdhuhu waa xantamaan. okay diinta naftirkeeda warkaas burinay maxay u burinay akbaru kabaa'ir cinda allah ilaahay wuxuu ku tilmaamay maxaa waaye dilka waaye. kufriga marka laga soo tago kufri tusaale ahaan ilaahay wax la shirki yeelay waxaas ilaahay agtiisa weyn ka tahay waa dambiga ugu weyn. kaas meel noo dhig rag iyo dumar waa balance check waa kaas qof kasta wuu qabtaa meeshii la rabaa laga helaa. gabadhu way gaaloobi kartaa, wiilku waa gaaloobi karaa, qofku muslim noqon karaa. kan taas waa iska caadi waa dambi maaha moogta. it's just qof waxa waa personal relationship ilaahay kala dhaxeeya waay kaas waa gooni moogta. laakiin waxaa noo soo qabataa dembiyada loo soo qabo kor iska soo qaad. dembiga koowaad mataqaanaa ilaahay agtiisa loogu neceb yahay dilka waaye. ragga waxa ka dil badan meel iigu sheeg intay joogaan. ragga wax ka dil badan male. marka waxaa ii sheegay ragga adduunka ugu dembiga badnaa jannada iiga horeeyaan miya kafeey ku cabaayaan biyo u baahanaay jannada biyo ku dhex cabaayaan miya ragga wallaahi dheh ma ogtaa. gabdhahana waxay macnaha ay joogaan naartay joogaan. intaas waxay kaa tahay miya marka qofka sameeyey intaas waxay ka tahay miya gabdhaha cabsi maskaxda ka deg naar uga sheekee cadaab uga sheekee si aysan cimrigooda kuula kalaamin, cimrigooda iskaga kaa celinin, cimrigooda kuu duleysnaadaan miya. horora u daaree horor film horor waxaa maqli jira dhegdheer dhimato ilmaha looga sheekeynaa moogta. filmaanta cabsida ilmaha loo daaraa camal mustiga waxaa noogu daaree mustiga cabsi leh anoo daaree. come on hadaba waa diidnay mustiga cabsida lama aragtay dhagaha ka furaysanay naarta meesha ka gashiinaa ka galaynaa. naarta hadday jirto ma aragtay barta ina rag naar uu ka galay ninka wax kufsaday wax dilay wax dhacay wax boobay dalkeenii Soomaaliya holaca ku shiday wiilasha gabdhuhu jidka ay ka mari laayihiin fuuq iyo faaq ay ka daba leeyihiin barta ay ka galaan ka galaya. ragga anaga waa jecelnahay waxa ku jira wiilal fiican na jecel na daba ordo noo dagaalamo ku jiraan which means ragga ma nacbin waa jecelnahay wayna dhaleen waa dhaleena waynoo dhaxayaan ma nacbin. laakiin marka ay noqoto dumarnimadeena cabsi iyo hor inaan nooga shidaan waa idinka ceshanaynaa. simple. that's why aysan meelna macquul ku ahayn waxaa noo sharxaysiin. absolutely nonsense waaye. is an absolute nonsense. waa ku celinaya waana confirm gareyna waa absolute nonsense. waa u qaadana marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan soo gunaado maadaama habeenkii igu horeeya live soo galay ay tahay ma raba inaan kusii dheeraado ama waqtiga ka qaato maadaama waqtiga qaali yahay adinkana macnaha timekiina iyo horeysiin. waxaan rabaa xujo
iyo wax yar oo tale oo dumar ku saabsan oo dumarka si gooniya aan macnaha ula hadlaayo in horta soo jeediyo. horta midda koowaad waxaa leeyahay mar kale waxaan usoo noqonaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo madaxaaga kor ha ahaado. waa ogahay in lagu caburinaayo, waan ogahay in lagaa daba qaatay, in maanta naftaada khatar ku jirto, waa macnaha dhibaato badan way kugu soo socotaa, inta kugu soo socotaa kasii badan. waxaad nafteena iyo anaga sida dumarka taageero ugu muujiso hamigaagii siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed aad ku leeyahay xataa qataraa gelisay. waa kaaga mahad celinaynaa aad iyo aadna thankful horta kugu nahay. ujeedada rabtana kala haaw, laakiin waxaan aaminsanahay qof muhiima naftiisana ay tahay in loo dagaalamo inaad tahay. dowladda Soomaaliya fariina u diraa waxaa leeyahay haddaad tihiin horta dad macquula, ninka xasan daahir aweesa maxkamad naga saara bilaahi calaykum. ninkaas inuu sii jiro waa qalad, inuu dadka la sii joogo waa qalad, waa argagixiso caalamiya. beesha caalamka naftirkeeda waa lala xisaabtamaa. waxaa xasan daahir aweesa u dhex fadhiya xabsi, macnaha dadku inay dhintaan oo keliya la rabaa. kaleeya xasanow cimriga waa kugu dhamaada adeer macaani, diinna inaysan hal xaba kuu tareynaa kuu sheegaa. waayo 70 sano aad diin usoo dagaalamaysa maxaa ka heesaa? xabsi guriga ku dhamaatee. dadka adiga camal ahaa danahooday raacdeen, taariikhay ka tageen, dadka da'daada ee waxbay dadkooda u qabteen. adigu wax kale ma qabatid oonan ahayn inaad faashil kusoo gabagabooday. faashil dadka dilo, dadkiisa dhaco, dhibaateeyo. marka anaga ma ku ogolaanayna inaa xasan daahirow adoo noocaasa ah cabdiraxmaan cabdishakuur meel la soo istaagto? not at all. inaa gaalaysiiso ma ku ogolaanayna? maya. gaalnimaduna wax maanta weyn big deal maba ahanba. you know why? because somowa wuxuu macnaha gaalaysiinayaa kii maxaa la dhahayay isheeg umul oo gaalaysiinaya. umla wuxuu gaalaysiinaya cabdiraxmaan cabdishakuur, hebelaa hebel gaalaysiinaya. marka waxaa waa game oo gaalnimo la ciyaara. macnaha game waxaa la ciyaara hebelaa gaala hebelaa gaala. so it's not important, big deal ma aha. it's not big deal. gaalaysi waxaa rabtid, laakiin muhiimadda waxaa waaye safetyga dadka waa muhiim. maalinaa imaanee waa lagula xisaabtamaa. adeer aniga waa ka naciim ahaan waan kula dooday oo maka rajo weyn markaasii lihiyo kii waxaa taa ku sheekeeyey ilmaha yar ee beebiyaasha ah inta la guursadaa lasoo furaa. ma fahmi? taas wax weyn oo muhiimada ma laha. laakiin waxaa ogaataa xilligii aad dumarka ugu sheekeyn jirtay waxaa tahay naaqus iyo ilaahay jannadiisa haddaa rabta isbahdil iyo ani waxaan leeyahay jannada aan ku helaya ani inaan isbahdilo janno aan kala aado maba rababa. xataa hadii lagu qasba anaa diidaayo qasab miya? no. jannada aniga inaan isku bahdilo igu soo raadsanayso I don't need it. I rather madaxaygoo sareeyo, sharaf aan leeyahay aan ku noolaado, meesha aan aadayana la ikam ha imaato. waana loo dhiman, kuma mashquulsani, degdeg uma qabo. midda aan maanta joogaan ku raaxaysanayaa. I will stay here, live with it, love it. bolisiga noocaaya oo keliya aan ogolahay. marka xasano waxaan filaa si fiican ay maqashay. marka waxba farqa ku dhigin cabdiraxmaan cabdishakuur oo tafsiirka iyo barnaamijkaas kala daweegaa. aniga the whole waa diidabo. hadda ka horna ku sheegadaa si caadi kula hadlay. waa wada doodnaani adiga. waa ku sheeg waxa sinaysiga dhaadhicinin. sababtu maaha diinta qaldan iyo maaha. sababtu waxa waaye waxa la sharaxay aan macquul ahayn. hadda isku hayso qof rabo inuu ii sharxo oo macquul ka dhigi karo oo logical igala dhici karo, haddaa heesaan soo daaya. ninka in kuga caqli badan oo diinta islaamka idin difaaco oo xadiisyada qaabilsan ii keen dood diyaara u lahay. by the way aniga ma ahi gabar masaakiin oo ku cabsi karto wax ma baranin. why? master degree holder ahay. okay, I have a master degree. wax kasta oo aad sheegtaa anaa isku tijaabinaa koow. tusaale xasuustaada wax ka qaldan yihiin haddaa i tiraahdo anaa isku tijaabinayo. waxaan ka fakaraa sidee aniga aan imtixaan ku galay, sidee intaanoo sanaan joogay wax kusoo bartay, sidee nolosheyda ku maamulaa, sidoo kambaniga 1 year gudahood aan u shaqeynayay isla marka igu dalacsiin karaa. okay, sidee aan u manage gareyn karaa macnaha team, sidee aniga nafteeda u manage gareyn karaa. texta iska qaadaa whatever ii sheegta anaa macnaha philosophy of life
maxaa mataqaanaa anaa example tusaale ahay tusaalaha noola ahay tusaalaha nool mataqaanaa anaaba tusaale ah wax kasta oo sheegto waa soo rogaa bis reverse backing u baahanahay gabar kasta waxay u baahan tahay wax kastoo la sheegay reverse backing dheh okay haddii aad adigu iska hesho warkaas waa xaqiiq meelna ha aadin buu iska dhaaf cid kale ma baanid science-na ha raadinin diinna ha raadinin sheekhna ha raadinin jinnina ha raadinin adaa iska arkay waa tusaale aad ku qanci kartay hore u soco simple as that waxaan leeyahay kacdoon dumaraa loo baahan yahay war dumaroo waa ba'deen cunugaa dhasheena idin caynaayo kaa u dhexdeena idin caynaayo wadaadku idinma roono mooryaanku idinma jeclo wiilal yaryar oo caqli leh oo maskax leh oo waxbartay oo qiimaha dumarka aaminsan way jiraan dhibse wuxuu ka dhacay mataqaanaa adduunyadii yaa rugmatay ragga intiisa badan waxay noqdeen wax lagu yaqiiqsoodo waxay sheegayaan gabarey marka kor isku soo qaad please and please kor isku soo qaad maxaan ka wadaa fursad haddaa hesho waxbaro caruur haddaa leedahay waxaa ku koraysaa tarbiyad fiican wiilka iyo gabadha sin ilmahaada wax wanaagsan uga sheekee mustaqbal fiican nolol fiican hami fiican inay financial independence wax la dhaho ay samayso gabadhaada bar inaysan nin lacagtiisa fiirinin inaysan nin jirkeeda macnaha iskuulna kusii uusan macnaha aysan iskaga dhiibin self respect self worthy wax la dhaho inay ilmuhu sameeyaan bar abo darbiyada ha istaagin markaa shaqada kasoo baxdo waajibka gudato darbiyada ha istaagin gurigaaga imaaw gabadha caawi ilmaha dhashay wax ka korso caruurta aad intaa dayacdaan aad ka tegaysaan iyo dumarka aad boqolka u guursanaysaanna dhaafa okay muhiimaddu waxaa waaye waa soo baxnay halkaa hadhiin iyo hal macnaha naciimo dulqaadaha ka cabaadayseen ma aho ahaa ani account garee waa imaadeen haddaa i aaminaysiinna ma soo soconin ka waramahe at all ma soo soconin laakiin maalin kasta waana googoobaysanaysin miya maalin kasta caqligeena caynaysin miya maalin kasta anagoo inka aqoon badan inka caqli badan inka cilmi badan waxa aa sheegaysaan daqiiqad idinkaga daadin karno all of it 1 second ma nagu qaadanayso saasaa u kala tuuraynaa been iyo kadib aa isku sheegaysiin okay there is no way maanta kadib bullshitkiina loo dhageysanayo there is no way waxaana gabar kasta leeyahay challenge naftaada sii ciwaanka waxaa waaye titleka ciwada waxaa waaye kacdoon dumar waa lama huraan wiilashu wayna taageeri karaan wayna jecel yihiin mar kale waxaan ku celinayaa wiilashu waa walaalaheen laakiin gabarey waxaad fiirisaa adduunka wax kasta oo dhacay waxaa fiirisaa adduunka isbedel kasta oo dhacay ee dumarka noloshiisa lagu horumarinayay believe me gabdhaha horseedayay believe me gabdhaha dhexda u xirneed believe me gabdhaha reerkoodii war ka diiday believe me gabdhaha naagnimadooda u dhintay believe me waxaan ku dhaaranaa wax kastoo qaaliya oo qof biniaadana ku dhaarto antiil dumarka soomaaliyeed dhagaxda xiratiin antiil caayada naftaada caynaya iska daysid adduunka meel kama gaaraysid anaa ku dhahayo maalin kasta ilmahaada xabsiyu galaya maalin kasta waad ooy doontaa maalin kaste qoys burbur baa kugu dhici doono maalin kaste dhibaataadan kasoo kabsanaad heli doontaa istaag hebelow maxaan sameeyaa soonac markaad haysato 2 saacadood naftaada waxbar qalinka sida loo qaado alaha ka dhigo right do whatever you can wax kasta ood awoodo samee naftaada jeclaaw do it for yourself haddaad adigu sameynaynin caruurtaada u samee haddaad caruurtaada u sameynaynin bulshadaada u samee nolosha dumarku ay ku jiraan inay tahay wax ka mid ah faktorka ugu muhiimsan nolosha maxaa ku ogaanay soomaaliya dumarkeeda fiiri siday yihiin dalkoodana fiiri
wax kasta oo qaaliya mar kale ku dhaaranaya haddii dumarka noloshooda la bedelo haddii gabdhaha yaryar wax la baro haddii gabdhaha ay iskuulla aadaan haddii shaqada iyo systemka macnaha waxbarashada iyo shaqaynta loo sinaado haddii aaba kasta iyo hooyo kasta gabdhahooda sida wiilashoo kale ay fursad u siin lahaayeen waxaa la heli lahaa bulsho iswada jecel waxaa la heli lahaa dad wada ordo waxaa la heli lahaa role models waxaa la heli lahaa believe me waddan kasta wuxuu u egyahay gabdhihiisa reasonkaas saan u tihiin dumarkiinaa silacsano and you will forever remain right xilligan dowladda lahayn gabdhaheena muuqaalkooda caqligooda waxbarashadooda wuu bedelnaa dalkiina way bedelneed waa example waaye waa collation wax waaye isku xiraa jiro waa faktara aana kala bixin gabdhaha hoos u jiid adi waddanka hoos la u jiidmaa gabdhaha fursad sii waddanka fursadoo helaa weligay way ahayd dreamkayga inaad dumarka u ololeeyo si kasta oo gabdhaha dhabarka ay iga toogataan waa ogahay aniga gabaraa iisoo horumari doonto laakiin walaashay waxaa ogahay inaad dhibano tahay waxaa ogahay in lagugu soo koriyey inaa iscaydo waxaa dareemi karaa marka aad leedaha naaqusaa ahay meesha aad ka keenta aslan waayo qofka waxa la baro wuxuu kusoo koro bay-adda uu joogo waxa caadiga ka ah waxaasoo dhan normalization ku sameysaa aniga waxaan kuu siin anaaba kuu saxiixaayaba iyo flagaaday icaa isoo orod waxaa rabta samee you have my signature anaa ku dhahayo it does not matter to me at all to the least degree hal gabar nolosheeda aan bedelaa iga badan hal gabar oo i dhagaysato maskaxdeeda isticmaashaa iga badan hal hooyo oo u faa'iideeya iga badan muhiimadeedu ma ahan bulshada dhan inaa bedelo muhiimadeedu waxaa waaye laakiin inta yarta ee waxa yarka aan bartay dadkaygu inaan uga faa'iideeyo waa i dhibsan kartaa waa iga xanaaqi kartaa laakiin afkayga ma xiri kartid because afkayga inaan ka hadla anaa go-aansaday I challenge you gabdho badan ay daawanayo darmaanaa ujeedaa naciimaa ujeedaa munaa ujeedaa kaahaa ujeedaa nacimo kalaa ujeedaa gabdho badan oo aqaani gabdho badan oo aqoonaa ujeedaa siteyaan ujeedaa waa badan tihiin wiilal badanaa ujeedaa waa mahadsan tihiin all of you adaa mahadsan tihiin laakiin si qaasa gabdhahow wiilasha wayna caawinayaane iyagaaba dhexda soo xiran doone naa kasta ninka ku qabay kii kula dhashay walaalaha way kusoo raaci doonaane naftaada ka bilaaw ha cabsanin maxaa u cabsane there is no way waxaa u cabsan meesha yaalaan you're not asking big deal you're not asking rocket science you're not asking anything you're asking self worthy wax la dhaho raada dhimo inaad dhimataa ka fiican believe me inaa dhintaa ka fiican haddaanan ku qanacsanayn qofkan ahay sister is doable iyo aamin laakiin courage u baahan tahay soo kaca ciwaanka waxaa waaye gacdoon dumaraa loo baahan yahay I challenge you challenge kugu sameynaa adiga waxaa kugu challenge gareynaya gacdoonka dumar ee bilowday maanta kusoo biir rag baa dhiig laga daadin rabaa adiga dartaa in adiga doqon tahay darteeda rag loo dilooyaa seefta adiga ha kugu dhacdano why because adaaba sharaftaadi u dhimanaysa adi wiilka maxaa kasoo galaya cabdiraxmaan shukuur lacala maanta haddii la dilo tusaale haddii cawada la dilo oo kuwii shabaab ahaa dadka qali jiray ay dilaan muxuu ka helay inuu adigu amaano muxuu ka helay su-aal waaye asigu nin maahan asigu waa nin 100% naagtuu rabo guursan karaa wuxuu rabo kaar wuxuu haystaa free kaar la dhaho inuu adiga ku difaaco ma baahno بالله عليه قبري وما باهنا إنه هذيك كود دفاعه سئوا أساق وحنا نقضوا ما باهنا إنه هذيك كود دفاعه عبد الرحمن عبد الشكور no he doesn't وحبوه كوينا يا عبد الرحمن عبد الشكور هذين كود دفاعه بل ضدك كنا عيان بل وحنا نقنيسا عن ندى شاكك كلي نقنيسا وكوايو سياسة دي سي وإنت هنكسو دوري جاي right believe me وحبوه كوينا يا كورن أديك جورجا جوجو اللي سوكا هيستو shame on you هذا قبرته هاي shame on you especially هذا وحبرتي shame on you هذا كعدون كان هذا كسوق يبقارن shame on you هذا نمك إسكعلنين shame on you نينك وناكسن هذا أمانين shame on you هذي ويل درتا ولا كالو دلايات عرقته هذا كأمستو shame on you وسياسة هذا ترى
not at all. I don't care anu weligay siyaasad ma dhex galo balse ninka i jecel waan jecelahay. Please istaag I challenge you cawada ku challenge gareenaya gabar istaag kacdoon dumara socdee tareenka yuuna ka tagin. I don't care rather aniga idil not at all. Please and please life ka ku xigo waxa sugaa gabar not will. wiilashu waxa waay binji inay galaan wiilasha waa inay naga daba socdaan waay qofka adoonka shaqadiisa waa adoon ah inuu dhaho it's your job, it's your responsibility. My darling adiga waaye shaqadaada. My darling accept reality ga bulshadaada ku gelisay. Acceptance ga maxaa ma taqaanaa waa first point of improvement. markaad tiraahdo waxba qaldan waxba saxee. Nothing to be ashamed of at all. waxba ma ka qaldano believe me. waxba ma ka qaldano believe me. Let's stand up marka istaag please istaag. Time is ticking. 2019 waxaa ka hadlaynaa caqliyaa leenahay with a degree level of masters. maanta ma ahan tan inaan ka hadla aniga shaqadeyda ma ahayn. I passed this level. waxaa liigu celiyay levelka ugu hooseeyo anybody could be. sidee aniga oo master degree holder maanta aan life inta soo galo uga sheekeeya in my hotel room sidee uga hadlaa inaan ahay aniga qof dhammaystiran. ideahan ma taqaanaa goortuu dunida dhan laga tirtiray ma taqaanaa dunida horumarta goormee laga tirtiray barnaamijkan qarniyadii 19aad u dambeysay 1974 macnaha 4kii iyo 1980. believe me it's so shameful wallahi ceeb waaye. hadda waxaan luuqadeena ku hadlo oo cawada aan turjumo waxaan ka sheekeynaa haddaan turjumo oo af qalaad aan ku sheekeeyo waxay noqonaysaa dad dhintay. it's like inay dadka arkeen ghost camal ay u raagti gareynayaan believe me or not. why? because ideadan waa laga soo gudbay no grade man theory iyo theorooyinkii dhahaya in leadershipka nimanka iska leh iyo outdated waaye. no company no firm isticmaasho ma leh believe me ma la isticmaalo. markaan baranayay jaamacadda markaan ku baranayay waa qoslaye. I was like was there a time waxa ma mar ma la dhihi jiray ataaganay dadku saamay u xumaayeen. little did I know dadkayga basaan ebo reason ka life soo galin waxa islaha anaga umad because aniga saa kuma soo korin guri leega jecel yahay aan ka qurux badanahay wax la iga baray all my life la kuuliya ka imid saas daraadeed ma dareemin na u baahanahay ina waxaan ka hadlo. little did I know waxaan waa muhiim waa very important why wax muhiima waaye. waxaan ku mashquulsanaa kaliya gabdhaha yararka waxbarashadooda noloshooda sidee ugu advocate gareysaa inaad wadankii dhibaatooyinkii kala qayb qaadato. laakiin maxaa noo daarteen taqaanaa canjil la dhaho naaqusaa tahay iyo eberaa tahay iyo zero tahay iyo lafaa kaa qaloocan iyo. I thought this was feeling good a long time. laakiin ma gubanin sababtaas oo soo baxa markaa mar haddoosa gubanin anaa waxaa isku haystaa 2020 2019 wax la dhaho inaa noolahay. laakiin maxaan ka imid bulshad degan 1400 years ago bulsho ka xisaabtamayso. markaan waxaan kusoo gabagaboobayaa dardaarankayga waxaan leeyahay kacdoon dumar waa muhiim waa ciwaanka. gabadha labaad oo soo gasha life waxaa rabaa kacdoon dumar waa lama huraan inay kusoo gasho. bulshadu ma waxay celi kartaa gabdhaha Soomaaliyeed markay life soo galaan? I don't think so love. muu maleynaa saas waxaana la celi karaa intaa yarnahay. ceeb waxaa loo yaqaanaa inta nambaradoodu 3 iyo 4 iyo 5 iyo 10 iyo 100 ay yihiin. laakiin marka nambarada increasingly ay noqdaan cidna ma celin karto waay sababtoo ah halkan aan fadhiyo UK oo ah dalka aniga aan ku noolahay believe me saano ahaa yooma min al-ayaam saasi dadka aaminsanayeen until dumarku intay istaagaan ay dhaheen enough is enough
until gabdhuhu kartidooda ay sameeyeen enough is enough ay dhaheen oo ay diideen khuraafaadka diinta oo ay diideen khuraafaadka dhaqanka oo ay diideen wax kasta oo damiirkooda lagu bahdilayo ay diideen saanay ahaayeen maalinkaas maxaa bilowday dad wiilasha ragga ahaa oo gabdhaha saacidayay iyo gabdhihii frontiga galeen xuquuqdooda waxay soo dhacsadeen codka waxay soo dhacsadeen shaqada waxay soo dhacsadeen furiinka waxay soo dhacsadeen every xaquuq ee ka dhinneed ay soo dhacsadeen sister yaa sugay adi inuu wiil kugu casuumo kursiga I believe me marka waxaan kugu soo celinaa mataqaanaa sabab gabdhaha leadershipka loogu diiday mataqaanaa qofna inuu kugu soo infaad gareeya ka sugin kursiga yaa waay qofka ku dhahaa kaale abaay macaanto halkan soo fariiso imaamul it doesn't work like that demand it say waxaan waa u dhashay waan aqaanaa I know how to do it and I'm gonna do it in their face do it how about that in their face you do it you prove them wrong hortooda wax kasta oo ay aaminsan yihiin uga burburi haddii lagu dhaho gabaraa tahay say yes I'm gabar and I'm proud to be gabar by the way I'm a great one excellent I educate myself waan shaqaystaa wax baan bartaa reerkayga mas-uul ka ahay waan ordaa waa caqli fiican ahay I'm in control my body my soul maskaxdeyda then you win a bio wakaasa dardaarankayga marka intaanu ku egyahay waa soo gabagabeeyey dardaarankayga waan soo gabagabeeyey waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo aniga kulli waa idin jecelahay midda baadiyaha joogto iyo midda waxbaratay iyo midda caqligeeda aaminsan inay naaqus tahay iyo midda aaminsan inay 100% tahay all of you ka dumar ahaan waa idin jecelahay waayo anaa dumara we in it waxaan waa isla wadanaa waxaa rabta heeso diintaa rabta heeso dhaqankaa rabta heeso caqligaa rabta heeso muhiimaddu waxaa waaye adigu inaad jeceshahay muhiimaddu waxaa waaye gabdhaha walaalahaana wanaag inaad la jeceshahay competitionka iyo barnaamijyada nala kala dhex dhigay iyo saltartanka iyo in anaga iska daba orodna in anaga is-challenge gareynana waa qayb kamid a dhibaatadana haysato waxaa loo baahan yahay one by one in looga taqaluso abaay waa qurxan tahay caqli badan tahay waxaa lagu sheegaya 99% waa been anaa ku dhahayo why anaa tijaabiyabo okay I challenge you marka kor isku soo qaad noloshaadana dhiso waxaan kaaga tegayaa inaad soo raacdo ka hadhin waxaan kaaga tegayaa inaad soo raacdo nimca dulqaad waxaan kaaga tegayaa inta gabdhood kale oo aan arkin ee live-ka soo gasho ee dumarka uu macnaha u ololeyso ee noloshooda u ololeyso oo qaybtoo rabta ka adduun ka jirto inaad soo raacdaa la rabaa kama liidatid say no please say no abay dheh no cidday rabta ha aato maya ku dheh because maya is maya cidna ma bedeli karto ciise iyo karaamaa idinkaga tegaya waxaan idin leeyahay balantu waxaa waaye annaga oo gacmaha isqabsano dumarkoo isku naxariisto annagoo isjeclaano annagoo isgarab istaagno annagoo mid walba midka gabdhaha mid kastoo macnaha u baahan caawin la caawiyo annaga oo dumar ahaan isqaabilno annaga oo dumar ahaan is aqbalno annaga oo dumar ahaan wax kasta oo dhiba aan kala tabanayna meel intaan dhigno wax walba oo common ah annaga aan leenahay u wada orodno annaga oo gabar kaste waxbarasho haysato waa inaan laga murmin gabar waxay rabto okay waa inaan laga murmin gabar waxay tahay ninka ku arko naaqus waxaa weydiisaa hooyadiis inay naaqus tahay I don't think hooyadiis inay naaqus tahay waa hadee naaqus tahay calooshii waa soo tuuri laheyd hooyada caqliga ay ku kiib garaysa 9 bilood dhibaatada iyo xanuunka iyo wax kasta ay martay hooyadii martay caqliga xanuunka ay ugu dulqaadatay iyada ma laheeno believe me marka waa saas anyway waxaan idinkaga tegayaa ciise iyo karaamaa idinkaga tegayaa waxaan idin sheegayaa inaan wax badan idin jecelahay ma ka ballan qaadi karo in lifekayga aadan ka xanaaqaynin laakiin waxaa kaa ballan qaadayaa aniga intentionally inaan kaaga xanaan jiraynin anigu waxaan ka hadlayaa damiirkayga caqligayga iyo maskaxdayda aan ka hadlayaa wixii aan aqoon u leeyahay aan ka hadlayaa
I apologize adiga haddaa xanaaqdo ama offensive aa u aragta hadalkayga keliya waxaan ku dhihi karaa erase war erase keliya waxay tahay macnaheedu waxa waa waxay tahay simple aniga kuma afan gareynin kumana caynin kumana aflagaadeynin bal waxaan sheegay waxaan u arko wanaag dhammaantiin waa salaamantihiin gabdhahana sharafta leh aadaan idiin salaamaya gabdhaha aan aqaano gabdhaha aan aqoonin wiilasheena sharafta leh cid kasta oo u ololeyso dumarka way salaaman tahay waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo si qaasa wiilasha Soomaaliyeed markaan Facebooka maalmahan oo dhan waan joogay waana dhex maraayay waxaa mar kale aan u mahad celiyo wiilasha Soomaaliyeed way dagaalameen way dhiidiyeen way noo ordeen annagoo aamusanay hadleen boqolaal wiilo commentiyaal dhiibaan arkay wiilal waxaan arkay boostooyin dhiibay kuwa live soo galay waad mahadsantihiin macnahaas waxaan ku qiyaas dareenkayga ma aqaano waa idinkaga mahad celinaa 100% gabar kasta oo ayadana ka hadashay ama live soo gashay ama comment ka dhiibatay ama waxa dumarka lagu haysto ka dhidhisay waa u mahad celinayaa hoob maxamed abaayo waa ku salaamaya mid lamida intaas oo kale axmed yar waa ku salaamaya galad xanad dhammaantiin inta salaanta ii soo qortay kulligiin waa salaamantiin waxaa idinkaga tagayaa sharaf iyo cisi karaama idinkaga tagayaa waxaa leeyahay way bilaabatay darmaan abaayo guul waa mahadsantahay waa ku salaamaya amal daayir abaayo waa ku salaamaya gabdhahana sharafta leh dhammaantiin waa salaamantiin waxaa idinkaga tagayaa challenge-ga ku xigo qofka keenaya farta ha taago gabadha aan ka sugayna live-ka gabadhay tahay ha ismagacaado ha isdoorato ha soo gasho aniga waa live waa share gareynayaa waan comment gareynayaa waan amaanayaa waan cizeynayaa waxaa noo balan annagoo isjeclaano waxaa noo balana annagoo u istaagno danaheena annagoo isjeclaano iyo annagoo garabka istaagno waa mahadsantihiin habeen wanaagsan